ninkan iga dambeeya Cabdikariin Axmed Xasan Allah gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka dalka waa isaga iyo guddigiisa waxaa fahmi waayey inay dad soo jeeda yihiin inay dad hurdaysan yihiin sababtu wax kale ma ahane waxay hool isugu keeneen dad ay leeyihiin urur siyaasadeedyo ama xisbiyo ay matalayaan shahaadooyinna waa la siiyey doorasho qof iyo cod oo dalkii u dhaqaaqay Soomaaliya geeska gees qof kasta codkiisu dhiibana waxay fahmi waayeen ummadda ay warkaas u sheegayaan inay yihiin ummad number 4 si saaxiya aan u mari karin oo askari uu madaxa ka tooganaa mararka qaarna hoobiyaal degmooyinka iyo filla Soomaaliya ah reeraheedii lagu soo ridooyo maalin caday ammaankii uu khatar yahay waxaa xitaa ka soo tag ammaanka waaba la xaliyaa la yiri maamul goboleedyadii yaaba diidanba hanaankan hadda wax loo wado oo loo arko inay tahayba alaab uu isku aadisanayo birmadahan macnaheedu markii xaaladdu ku xumaataba ku kaarta baxaya hanaankan dagaalka iyo howlgalladan ka dhanka ah qawaariijta markii xoogaa culays ka degana bow saaraya master Cabdikariin oo aad dareemaysid mararka qaarkii isaga iyo xulufadiisa guddigan madaxa bannaan ee doorashooyinka la yiraahdo inaysanba dadkan dan ka lahayn oo kaliya ayaga fiirsanayaan oo ah caalamkan maxaa ka heli kartiin oo dhaqaale ah oo jeebkiina soo gala si aad u sheegtaan bal doorashan socodsiinayna ayaa 2 maalin ka hor hool weyn ijaaray kadibna dhahaya hoolkan doorashaa ka dhici doonta dadkii go'aamin lahaana waa ka qaadnay waa hadda meel uu ka maqan yahay rogcadaagii mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed qubaradii adiga yaan 1 iyo 2 ku dhihin dadkii dhan xisbi siyaasadeedii waaweynaa ka maqan maamul goboleedyada ka maqan hawsha ay guddiga doorashooyinka wadaan waxaan fahmi waayey maaweelada caruurta barnaamij la dhihi jiray ee idaacadaha ka bixi jiray inuusan waxba dhaamin iyo in ayaga ay ugu talagaleen inay saas ama u arkaan dadka inay saas loo madadaali karo waa fahmi waayey aniga laakiin arinta ay damacsan yihiin waa shirqool kale hadda madaxweynaha Soomaaliya maanta wuxuu soo saaray oo baaq ah in madaxda dowlad goboleedyada shirka ay isugu yimaadaan madasha wada tashiga madashan ma ku imaanin baryo madashan birmada waa diidanaa maamul goboleedyada dhan waa diidanaa macnaheedu Axmed Madoobe oo maqan iyo Puntland oo maqan madashan inaysan soconin waa la dareemay culayskii marka reer galbeedkii markii loo laabtay ilaa wadan gaajeysan oo gacanta horsadaan nahay birmada waxaan aawad shalayna ma socon haddana ma soconaysa runta ayaa indhaha loo saaray marka baaqi iyo wada tashigi waa qasab maaho marka doorashada la qabanayo maxay tahay teendhada aan ahayn gudoomiyaha ka gaarsiiyay ka tahay waa dareema aniga iyo xisbigan guddigan la dhahayo muxuu ahaa doorashooyinka madax bannaan ka gaarsii oo nafci hela ayay ka tahay laakiin ka gaarsiidii waxay u baahan tahay naftigeeda wax soconaya waa meel darajada ugu hooseysa aanan doorasho lagu imaanin waa meel haddii loo baahan yahay doorasho qof iyo cod in la galo ay u baahan tahay aad u hooseeya in laga soo dhiso doorasho qof iyo codaa la galaya iska keen ma aha badqabka qofka codeynaayo ammaankiisa kow waay bay'adda lagu codeynaayo siday noqonayso 2 waay intee lagu codeynaa hadda maba dhisna xitaa tusaale haddii la dhihi lahaa doorasha la diyaarina xarumo waaweyn oo dadka ay saf u galaan xarumaha doorashooyin saan xarunta hebel ma jirto ani marka maxaa igelinaya hool ma igelinaya doorashada saas miyaa qof iyo codka laga wado oo hadda muqdishadii xitaa xarumo kuuma yaalaan dadka ay ka codeeyaan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka horay waa u arki jirnay laakiin qaabka ay wax ugu diyaarsanaayeen tusaale Xaliim Yari oo kale gudoomiye ahay qaabka wax iskugu aadinaysay siday u hagaajinaysay macnaheedu meesha loo socdo waa sii dareemaysay guddigan say u jiifaan hal mar ay soo kacayaan qof soo salaladay oo hurdada ka soo saladay oo kale doorasho qof iyo cod la qabana ma shaqeynayso adiga xitaa codkaaga inaad dhiibid iska daayay adoo hal nin oo waardiya kula soconin ma imaan kartid number 4 gudoomiyo inta soo baxay kilomitir 4 iyo gurigaaga ma ku laaban kartid kaliya adoo iska socdo maxaa waay marka xaalad aan noo sheegay iska soo tag xitaa xamaraaba ku dhex socotay afgooyada inta ah ma tagi kartaa adiga markaas waxaa ka hadlaysaa geeska gees doorasho qof iyo cod in ka dhacdo madaxdii hore dalka xilka uga soo qabtaa ka hadashay waa la sheegay in arintan ayba ujeedka ugu weyn laga leeyahay tahay in wadanka macnaheedu mar kale hanaan uu rabo xasan in kursiga ku sii adkaysto ay kaliya la xiriirto oo aysan ahayn wax gaar ah oo wadankan iyo dadka loo daneynayo waa laga diiday waa lagu fahmay gudoomiye adiga guddigaaga waxay ku fiican tahay arinta inaad tartiibkiin dadkan ilmaha caanahooda wax ka raadsanaya wax ka raadsataan saan jeeb kuma buuxsamo dalna xal uma aha haddii daacad idinka tahay habka loo wajihi karo oo Soomaalida ka wada dhaxayso oo la wada ogol yahay hala qaato
kadibna gunta hoose ha laga soo dhiso 2 sano hal sana dhiman doorasho qof iyo cod aan gelinina wadanka qaraska tuur siyaasadeed waa salaamu calaykum